السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadan doonaa cutubka afraad ee maadada xisaabta fanfoorka. Cutubkan waxaa loo yaqaanaa ama chapterkan waxaa loo yaqaanaa statistics. Waa cutubka afraad ee fasalka waa cutubka afraad ee fasalka 12-aadka. Cutubkan wuxuu ka kooban yahay dhowr cashir oo afar ilaa afar cashir gaarayso. Cashir koowaad waxaa loo yaqaanaa mean, medium, mode of group data. Midka labaad waxaa loo yaqaanaa cumulative, frequency, curve ama waxaa loo yaqaanaa ogif. Ka saddexaad waxaa loo yaqaanaa measures of dispersion ama spread. Midka afraad u dambeeya ku qaadan doona cutubkan waxaa waaye waa steam and leaf plot. Afartaas cashir ayuu cutubka ka kooban yahay oo ka hadlaya. Mid kastana si gooni u qaadan doona insha Allah. Haddaan ku bilowno introduction yar, horta statistics aan baranayna muxuu yahay? Bal aan qeexitaankiisa barano. Statistics waxaa loo yaqaanaa waa branch of mathematics taasoo lagu barto with the various of methods of collecting, presenting, interpreting information of data. Marka waxaan dhahaynaa statistics waa qayb ka mid ah xisaabta taasoo ka hadasha various methods qaybo kala duwan of collecting xog la soo ururiyo, presenting in la soo jeediyo, interpreting in la turjumo oo qaab kale loo turjumo, information of data xog ama data in la soo ururiyo kadib la soo jeediyo kadib la turjumo waxaa loo yaqaanaa statistics. Waana qayb ka mid ah xisaabta. Maxaan leenahay statistics maxaa waaye? waa the branch of mathematics waa qayb ka mid ah xisaabta ama laan ka mid ah xisaabta that deals with taasoo ka hadasha the various methods qaybo kala duwan of collecting ururin, presenting soo jeedin, and interpreting soo tarjumid information xog or data. Information iyo data way kala duwan yihiin oo laba macno kala duwan ayay kala leeyihiin. Data maxaa la waa shay waa xogta markay qeyrin tahay oo la habaynin ama collecting, presenting, interpreting arena meesha ku qoran intaan lagu sameeyo waxaa loo yaqaanaa data. Waa raw material waa xog qeyrin ah oo waxba la habayn oo si loo rabay aan loo bedelin. Information waxaa markii shayga analysis loo sameeyo oo la tafatiro waxaa loo yaqaanaa information. Marka statistics waxaa waaye waa branch of mathematics taasoo ka hadasha qaybo kala duwan oo ah collecting in xogta la soo ururiyo, presenting la soo jeediyo, interpreting la turjumo waxaa loo yaqaanaa statistics. Marka waxaan dhahaynaa statisticska waxaa loo qaybiyaa two parts ama laba qayb. Qaybta koowaad statisticska waxaa loo qaybiyaa laba qayb oo kala ah describe statistics iyo inferential statistics. Laba qayb cutubkan wuxuu ka hadlayaa oo si gaar ah faahfaahsan uga hadli doona oon ku qaadan doono waa qaybtan describe-ka statisticska. Qaybtan buugga kama hadli doono. Marka qaybtan ayaan baran doonaa. Qaybtan hadda waxay tahay marka qeexitaankan aan qaadano. Qaybtan oo describe statisticska laba qayb qeexitaankan aan qaadan doonaa. Qaybtan marka waxaan ku bilaabaynaa describe statisticska muxuu yahay? Waxaan dhahaynaa marka waa consist of collection, organization, summarization and the presentation of data. Waa consist of describe statistics consist of wuxuu ka kooban yahay collection in xogta la soo ururiyo, organization in la habeeyo, summarization in lagu sameeyo soo koobid ama la soo macnaha summarize lagu sameeyo oo ah soo koobid. Sidoo kale presentation of data in xogta markii la soo ururiyo kadibna la habeeyo kadibna la soo koobo in la soo jeediyo waxaa loo yaqaanaa describe statistics. Qaybta inferential statistics maxay tahay? Inferential statistics marka waxay tixgelisaa oo kaliya interpreting and drawing conclusion inay la turjumo kadibna la sawiro. Qaybtaas bas qaybta ka hadasha statistics ka hadla in xogta la sawiro sidoo kale la turjumo waxaa loo yaqaanaa inferential statistics. Marka hadda waxaan ogaanay in statisticsku loo qaybiyo laba qayb oo ah describe statistics iyo inferential statistics. Describe muxuu yahay? waa qaybta ka hadasha in xogta la soo ururiyo kadibna la habeeyo kadibna la soo koobo sidoo kale la soo jeediyo. Qaybtaas kaas waxaa loo yaqaanaa describe statistics. Qaybta cagsiga ku ah in xogta la sawiro sidoo kale la turjumo ayaa waxaa loo yaqaanaa inferential statistics. Qaybna collection and organization data xogta in la soo ururiyo iyo in la habeeyo maxay tahay?
horta raw data ama ungroup data waxa la jira raw data waxa markay xogta saan hore soo sheegnay xogta markay qayrinta aan wali waxba lagu sameyn ama la analyze gareynin ama la habeyn waxa loo yaqaanaa raw data ama ungroup data waa data aan la habaynin marka waxa noqonay waa data that have not been organized waa data ama xog aan la habaynin oo markii la soo ururiyay kadib waxba lagu sameyno oo la analyze gareynin group data waxa waa cagsigeeda waxa waa data organized and summarized in frequency waa data la habeeyay sidoo kale soo koobay qaab frequency ah oo soo noqod lagu sameeyay raw data ama ungroup data waa markay datada ay tahay mid aan la habaynin group data waxa markii datada ama xogta markii la habeeyay waxa loo yaqaanaa group data